السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا واسعدي حسن جنرال كان داوني سانو أجمل جنرال أصحاب الجنرال كي كحران waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada mar kaleeto muuqaal cusub oo xiiso leh channelkan inta badan waxaa ku aragtaan dhammaan muuqaalo ka turjumaya magaalada Muqdisho muuqaalkeeda rasmiga ah sida ay u taalo degmo walba oo Muqdisho ka tirsan muuqaaladeeda waan soo geliyay qaybana way ii dhiman yihiin qaybana way ku jiraan waxaa kaloo ku aragtaan dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho marmara ee aada ama degmooyin ama xaafado ama magaalada centraalkeeda waxaan muuqaaladaas oo dhan aan idinkugu soo duubaa qaab aan isdhihi karo way ka faa'iideysan karaan oo waxay u arki karaan kaanama inay joogaan oo kaleeto oo aanan lahayn wax kala reen ah iyo wax qurxin ah waayo wixii hadii la qurxiyo ama la kala reeyo waxaa baxaya macnaheeda saxda ahaa ee ay meeshu lahayd si loo helo muuqaal rasmiya ee aan lahayn color iyo midab waxaan isku dayay inaan sida aan u soo duubo idinkula soo wadaago aan idinkugu soo bandhigo si aad u aragtaan xaafadihiini ama meelaha deegaameenta ku socoto waayo xamar way balaaratay sidii ay ahayd 10 sano hadda ka hor ah ma ahan 5 sano hadda ka hor xitaa saan ma aynan ahayn degmooyinku way balaarteen way fideen waxay gaareen baadiyihi haddeertaan meelaha ugu badan ee la xiiseeyo waa meelaha ka baxsan magaalada saa ay tahay dhulka waxaan isku dayaa inaan wareysiyo ka qaado dadka meesha jooga ee dalaalada ah ee meesha u badan inaan weydiiyo qiimaha dhulka uu marayo inaan weydiiyo qiimaha lagu kala iibinayo ama qiimaha lagu kireenayo qofka haduusan iib awoodinin taa oo dhan waxaan waqti ugu bixinayaa ugu dadaalayaa inaad ka faa'iideysataan muuqaalka wuxuu nooga bilaabanayaa maanta degmada Dharkeenley qaasatan xaafada Nuur Adduunyo xaafadana muuqaal ahaan iyo bal qiimaha dhulkeeda uu marayo inta lagu kireeyo macluumaadkaas oo dhan maanta muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa insha Allah soo dhawaada inta hore ugu xirneed shukran lakum inta hadda ku cusubna waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan muuqaalka leeg wada saara dhamaantiin wada share gareeya fikradaha iyo ducada iyo talooyinka intana commentiyada noogu soo reeba biidnillaahi kariim wax badan waxaa dhahdeen xaafadaha Nuur Adduunyo waa kana maanta muuqaalada ama ha soo daahaan ama ha soo dhaqsadaan muuqaal kasta oo aad dalbataan laasti waad heleysaan biidnillaahi kariim hadduu soo daaho waa inaad dulqaad yeelataan almuhim inaad dulqaad adag leedihiin oo maanta intaad dalab samayso aadan suginin asbuuca soo socdo asbuuca ku xig waxaa laga yaabaa bil kadib in la soo sameeyo waayo muuqaaladan inta laga marayo haddaad ogtihiin inta laga marayo wallaahi waxaa dhihi lahaydeen meeshii aad kasoo duubtaan fiirsanayna ilaa qof walba meeshuu rabo ama meesha niyadiisa ku jirto uu laasti u arko laakiin waxba kama ogidiin ayagoo diyaarsanaa fiirsataan wax walba oo dhibaho aan ka marana waa dhibaan u qastay qofku markuu shaqada ay ka go'an tahay niyad ay ka tahay culeyskeeda ma dareemo waayo waxaan rajaynayaa ama aan niyeysanahay inay noqon doonaan taariikh Soomaaliya oo dhan anfacada Soomaaliya oo dhan ay hiigsadaan aakhirka annagoo dhan aan ku faraxno markii aan marxaladeena sidaan iska bedesho oo wadankeena oo dhan uu noqdo wada muraayado wada dhalooyin dhul micnaha wada qurxan wada muraayado wada dhalooyin waxaan kala jeedaa dhul kor iyo hoosba nadiif ah qurux badan dhismo fiican heerka markaan gaarno baan dhihi doonaa sanad hebel saanu ahaa wadankeena xaafadahan nuucaana way kaayeen maantana sidaanay yihiin rajadaa baan leeyahay taaba ay halmaamsiinaysa marka culeyska laga marayo tan aad dhahaysaan muuqaaladii noo soo sameey intaasoo maraa kaa codsanay ma noo soo sameynaysid miyaa ma tixgelinaysid miyaa dalabkeenana waxaan idin leeyahay ma fiicno waayo
anaa isku laasimiyey inaan xaafad walbo muqdisho ka tirsan aan soo duubo. sug haddaad dalbatay anigoo dalabkaaga tixgelinayo maalinta ilaahay ii suurtogeliya waan soo sameynayaa. Ama waxaa laga yaabaa oo dhici karta muuqaalo iigu jira ee aanan weli soo diyaarinin inta soo duuba iigu jira inaan laakiin edit garaynin inaad i weydiisaan oo markaad i weydiisaan maanta oo kale aad i weydiisaan beriyo kaleeta aan soo dhigo. Ha is oranina ama niyadaadu iyaysan kusoo dhicin qofkaan maantuu dalabkaan dalbaday isla maanta waa loo soo dhigay adi maxaa lagu haysta. almuhim xaafadda aan dhex soconno waa Nuur Adduunyo. xaafadahan aan hadda muuqaalka soo bilaabo ilaa hadda meeshaan aan joogo dhan ilaa laamiga aan uga dhacno Nuur Adduunyaan maraynaa. Nuur Adduunyaan dhex joognaa. xaafadahan marka guryaha filooyinka ah ee cusub waxaa lagu kireeyaa 300 ilaa 350. sida dalaalka meesha joogo oo aan ka wareystay uu iga warbixiyey wuxuu igu dhahay 350 ilaa 300 lagu ijaaraa. guryihii hore ee qadiimiga ahaa waa macquul in 250 meelaha lagu ijaaro, laakiin guriga markuu u dhow yahay laamiga cusub yahayne 350 aa lagu ijaaraa. ama qiimaha la iibiyo qaybihii hore aan soo marnay kasoo bilaab muuqaalka meeshaa kasoo bilaabnay wadooyinkaas caadi bay ahaayeen. hadda Nuur Adduunyo wadadan aan idin dhahayo oo laamiga aad u jeedaan meesha bajaajyada marayaan, markii wadadan wadada ku xigto iyo tan kusii xigto xoogaa waa hoobad, waa biyo degeen. dhulka marka dadku ma jecla inta badanna lama iibsado, laakiin dhulkan hadeertaan aan idinkaga warbixinayo oo hadda wadadan cabirkan fiican leh biyo deg aan ahayn ee caadiga normalka ah, qiimaha waxaa lagu kala iibiyaa meesha muuqaalka aan kasoo bilownay. hadda qaybtan waan sheegi doonaa laamiga u dhow, laakiin meesha muuqaalka kasoo bilowday 80,000 85,000 70,000. xitaa wuxuu igu yiri maalin dhaweyd xaafad baan guri baa la rabay, waxaa lagu rabay 75,000 waa lagu diiday 80,000. waana xaafadahan muuqaalka kasoo bilaabay. qiimahaabay marayaan 80 ilaa meelahaabay qiyaas ahaan ay yihiin. waa macquul inay ka bataan. waxaa kaloo macquul ah in wax lagaa dhimo oo qofdii lacag u baahan marka aad la kulanto oo sidaa qiimo dhimis lagugu sameeyo. ama markii lasoo gaaro jidkan iyo jidadka la siman, laakiin birimada ma ahana suguntada iyo sidaan hadeertaan laamiga iyadoo loo jeedo guryahan ah 120,000 ay ku fadhiyaan. gurigan hadda aad arkaysaan ee aan hortiisa taaganahay wuxuu ugu yiri ninbaa hadda iibsaday, wuxuuna ku iibsaday 110,000 moodah ma garanayo. hadeertaanne guryaha aadkiisa oo dhan ee ku cabirka ah 120,000. asaga hadda kule iib maaha, ninka lahayaaba hadda iibsaday oo macnaha hadda dhowka tay qiimaha baa lagu iibinayaa. kirada 400 guryaha markay laamiga saan ugu dhow yihiin 400 ilaa 450 waaye hadday qolal badan leeyihiin. mar walba qolalka muhiim ah oo qolalka markay badan yihiin kiradu way badan tahay, waayo qofku intuu kiraysto sii kireyn karaa oo laga sii degi karaa. xaafadahan marka miqyaaska ama qiyaasta liiga siiyey aniga waa intaa. waa dhulka magaalada sentraalkeeda ku yaalay, degmooyinka qadiimiga ahaa, dhulkii hore qadiimiga ahaa. qiimihiisu waa qiimaha magaalada oo kaleeto, laakiin waan u gudbi doonaa oo waxaan arki doonaa qiimo dee waali ah markii laamiga la aado ee guryaha birimada ah ee laamiga saaran. lacagtooda lacag macquul ah ma ahan. lacag macquul ah maaha, waxaan kala jeedaa lacag aad u fara badan weeyaan.
ama hadda meeshaan aan joogno 120,000 ilaa 80,000 ay u dhexeeyaan xaafadaheeda. 120,000 waa dhulkan laamiga u dhow. marka dib aad u socoto ee xaafadaha aad dhex martane mar walbo aad sii fogaato lacagtu way sii nuqsaamaysaa. dhankan biyodega qofkii rabana qiimo macquul ah ee raqiisaha laga yaabaa inuu ku helo booska. waayo waxaa looga cararaa biyodega inta badan roob hadduu yimaado waa dhul dee aan roobkii iska difaaci karin oo biyuhu aysan ka kuraynin ee ay fadhiisanayaan. ahama shay waxay tahay xaafadaha Nuur Adduunyo degmada Dharkeeley inaad muuqaalkoodan aragteen, sidoo kaleeto warbixintoodana intii aan macluumo ka hayay aan idin sheegay. aad baad ugu mahadsantihiin sida aad ugu xiran tihiin muuqaalada aan ku soo bandhigo janaalkan. shukran lakum. laamigii baan imaanay, dhankan dabakaaya cagaar iyo dabakaaya madow baan u leexday. insha Allah muuqaalkan muuqaalada xiga waxaad ku arki doontaan muuqaalo kale ee aad u xiiso badan. intaanu noogu eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.